وي تدسكو جيفي هوساهي إن محمد حاشي أما حاش عبدية يا فلقاتية وواحد لقى في عي إلى أن حرست جنا كورابيو حاش عبدو حلون انتري حاشي سبيتر نصدق حد قال أنا مو هين لبت شهر وحلقوا الله رأيني اللي يراهو إلى أن حرست جنا كورابيو اللي يراهو شيخ بشير مركا عبد الرحمن ونكو عدو سياسي وبنان كايستاقي وضدك عضو صوت دونتي دوا لا فلقاتينيا وحياي وحناين بوا لقى شيقيا لكن waxyaabaha qaar in tolku ku wada hadla oo wax laga fiican yahay in dadig la isku sheego waa ceeb kii ciidanka jabiyay ee faqashta ku soo daayay dalka gudihiisii na waa la amaanayaa dowlad quwad weyn dhaqaalaheedu dhisan yahay wasaaradda arrimaha guduhu way ku fashilantay dhammaan goboladii dalka oo dhan amnigiisa ay gacan adag ku hayso وذلكيسي قبل كيسول مقالة الأسعانات شيخ بشير هالجماعة مو هين وعنه شقي دولة إنجليزكا شعب كيسنا وبساس جري وحقيقنا بتسلويه مركا تذكر جورج تضح قرنا ما هين ولا تدي عرنتي مركب برعلة تيجي نكستو بساس هذا ساس الله قلا وكتم بيا إن معنا سن لوجرون بو هايستا marka ninka qoryaa la jooga waxba kama ogi hareerayda wax ka dhacaya iyo xuduudaha isaga daarood leeyihiin daawadayaal khalka telefishinka horyaal waxaa si toos ah ugu jira aqoon-yahan qurba joog maxamed xasan dalac oo ku sugan dalka Faransiiska marka hore ku soo dhaw telefishinka horyaal dhawaan waxaad la socotaa inuu hadlay gudoomiyaha urur siyaasadeedka ka maxamed xaashi in siyaasiyiin kala duwan ay jawaab hawada u mariyeen سادو أركتها هذا الكي سياسي محمود حاشي يسياسينتي جوابها كلا دوان كبيحية هذا الكاسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا هوريال تي في يا عبد الرحمن جنبا أنا عبد الرحمن وكل صحيري وعن كل صحيري وحوية أنت كان على قبل كسول وكان لي قدومية ورسياسات كا محمود حاشي عبدي haddii aan kaaga jawaabo sida khudbadiisa aan u arkayay waxay lahayd khudbad nin weyn oo way araga oo rug caday halkeedii dhigay marka dad badan baa jiro oo aragti gaaban oo marka ka daba hadlay oo waliba siyaabo badan xadgudub oo hadlay oo dhaqanka suuban iyo meeytida in la gaadho aan ahayn marka waa sidaadeer maxamed oo dad badan waxay ku dhalilayaan gudoomiyaha urur siyaasadeedka ka maxamuud xaashi in uu aaminsan in dagaal dambe aan lagu qaadin gobolka Sool dad iyo kala duwan oo bulshada Soomaaliland ka tirsan waxay aaminsan yihiin in gobolkii Sool aanu sinaba gacanta Soomaaliland uga bixi karin oo degdeg talaabo loo qaado bal arintaas aad u aragtaa Cabdiraxmaan Naadir haddii aan kaaga jawaabo arintaa waxa weeye xukuumadda joogto waxa loo dhiibay Talya dad midaysan lixdii gobol ee waaweynaa ay gacanta ku hayso dowlad quwad weyn dhaqaalaheedu dhisan yahay wasaaradda arrimaha guduhu way ku fashilantay dhammaan goboladii dalka oo dhan amnigiisa ay gacan adag ku hayso wadarkiisay gobolkii Sool magaaladii Laascaanood ciidamada lagu soo daayay oo isuwan calankii buluugaasta wadarkiisay ummadoo dhan way daawanaysaa Faysal Cabdi Bootaan oo garaadada la hadlaya oo la gobolkiina ku soo dhawaada laakiin looma ogolaan ciidamo gudaha u galaan amarkana waxa bixiyay wasiirka arrimaha gudaha inuu soo fasaxo askartii hubka meesha maraysa taasna waa ayaan darro weyn marka Cabdiraxmaan oo ninku haduu siyaasi yahay oo banaanka istaagay oo dadka cod soo doontay dawaa la flagaateenaya wuxuu yahay oo xanayn baa laga sheegayaa laakiin waxyaabaha qaar in tolku ku wada hadla oo wax laga fiican yahay in dadig la isku sheego waa ceeb kii ciidanka jabiyay ee faqashta ku soo daayay dalka gudihiisii na waa la amaanayaa kii dalka iyo dadka u tuurayo wanaag iyo nabad ugu talneeyna waa la flagateenaya wax soconaya ma markii ciidanka faqashta ku soo daayay dalka dhidiga mise ninkii nabadda ka taliyay waxa weeye dad isku jifi hoosahi
إن محمد حاشي أما حاش عبدية يا فلقاتية وواحد لقى في عي إلى أن حرست جنا كورابيو حاش عبدي وحلورن تري حاش سبيتر نصدق حد قلنا مو هين لبت شهر وحلقوا الله رين اللي هو إلى أن حرست جنا كورابيو إلى هو شيخ بشير بوكتو والله هي إنه شغين تري إنجليزكي إنه بصاص وها markii dambana waxa jirta beesha caalamka ama wadamada horumaray ninka basaaska ah ee u shaqeeya markii dambe way dilaan Sheikh Bashir halgamaa muu hayn wuxuu ahaa nin u shaqeeya dowladda Ingiriiska shacabkiisana uu basaas jiray waa xaqiiq dhabo taas loo yahay marka dadku bariga hore dad qorana ma ahayn waa la diiday arrintii markii burca la jiiday nin kastoo basaas aana saasa loo galaa ku dambeeya وحوي محمد حاشي أوياشي ورجع ورنشلي بقى بريكرو معها ريد دقة حمرتا بيلوين تعبر على الحدود كل شيء ما رش حشحاق وحوي واللي قاعد يقولوا كون تاق بهاي هذا هو حسري وسعودي مركا وحنا نسوق بجبينية قاعد يحكي قال وين تحيق له يه كل هذه حبالها لا قالوا اللي اسمها له marka reera baa Allah waan ku soo gabagabeynaya marka hadal iyo dhamaan waxaan ku soo gabagabeynaya biyaha badda kalluunka ku jira bariga waxa ka dhacay waxba kama oga ya in nimcadaas lagu jiro buu haystaa marka ninka qoriga la jooga waxba kama oga og yahay hareeradeeda waxa ka dhacaya iyo xuduudaha isaaqay daarood leeyihiin maxamed fariinta ugu dambeysa ee aad bulshada Somaliland iyo guud ahaan siyaasiyiinta Somaliland aad u dirisay xaaladan adag ee Somaliland waqtigan ku jirto maxay tahay shacabka Somaliland way arkaan xaaladdu halkay marayso inay ciidankoodii la dhibay 8 bilood ay dagaal ku socday gacmaha laga xidhay ay laba dib loo xidhnaayeen oo la diiday inay wax iska celiyaan maalin walba waa la soo weerari jiray صدق نبى كدمانية ويحبس كي علنيين قوي لقى صويرين ويقبسني دولتنا وحيكون أمر كسينة سنة تبص النقدان إذا كقرك ولا بهدلي نيدهم بيودنتين وح الله له وحمانتا لقط المامو وتشدد دولته كه لهيد تبين تعيدا كقرك لقرن معي